بوينة مجلس أيام كوبلابان إن برنامج كان دين تأي دنيا نبض إن حريصنا هاتو صوبنا هنا كركيسة وبرنامج كان دين تأي دنيا حلقة دي سلابات حلقة ده وحنا كو افتيمين إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد جري رأيي سواحة نولش ما كود بري جري مسائل شان وحنا قبلنا إن مسائل دينية هي مسائل دنيوية أرمها الدين تقصيصة ووحي كسليسن وحي دونيدا قصيانا waxaa niri waxay ku saleysan tahay aragtiyo iyo tajaarub iyo khibrado iyo masalix arimaha qusaya diiniga jamhuurta culimada waxay qabaan inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku ijtihaadi jiray culimada qayb kamidana waxay ku tageen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku hadli jiray inay hayaan wada waxyi arimaha laakiin dunyawiga ah oo masalixda iyo siyaasadka iyo arimaha adduunka oo dhan علماء waxay isku wada raacsan yihiin mujmac ay ku yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu ku ijtihaadi jiray imaam shawkani wuxuu soo aroorinaya ijmaaca oo wuxuu leeyahay wa ajma'u ala annahu yajuzu lahum al-ijtihad fi masalih ad-dunya wa tadbir al-hurub culimada waxay isku waafaqeen in anbiyada ilaahay uu soo diray oo dhan si u dhan yihiin ay u banaan tahay inay ku ijtihaadaan arimaha masalixda adduunka iyo dagaalada iyo wax la midka ah nabigana sallallahu alayhi wasallam anbiyada allahu kamid yahay qodobka koowaad waxaan ka hadlaynaa daliilaha na tusaya in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku ijtihaadi jiray arimaha diiniga waxa kamid ah arimaha diiniga nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku ijtihaaday dagaalkii badar markii laga qayb galay oo gaaladii 70 laga dilay 70 laga qafaalay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadu wuxuu u soo bandhigay wuxuu ka yeeli lahaa 70 kaas qof wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam qaatay aragtidii Abu Bakr Siddiq in nin walba uu isku furto lacag nin walba marka waxa la lacag isku furo fidya laga qaatay إلهي سبحانه وتعالى وحي بسودجي أرنتاس وكسحايو نبينا صلى الله عليه وسلم وكعنانت لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم آيات صحة وحي صحيسة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقوا أركي بقدالك صحدي علوذا بكو حليه النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد جري حدو صحنا وخير هدي كرنا وحي إلهي سبحانه وتعالى كو إلالين جري وصودق جري ووحي صحي جري waxaa la mid ah markii nabiga sallallahu alayhi wasallam iska xaaraamtiyay malabka iyo cunitaankiisa markii qadiyadii dhaxmartay asaga iyo xaasaskiisa Aisha iyo Hafsa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ya ayuha an-nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik waxaa la mid ah markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu baneeyay dadkii munaafiqiinta ahaa inay ka dib dhacaan dagaalkii Tabuk Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin aayadahaas oo dhan waxay ku tusayaan in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku ijtihaaday masaa'il marka ka hor timid waxyigiina uu gadaal ka yimid oo uu saxay arimaha marka dunyawiga ah taa culimada way isku raacsan yihiin waxaan u soo qaadanaynaa saddex xadiis oo runtii muhiima oo aan wax badan kala dhaxbaxayno waaqicina aan ku noolnahay xadiiska koobaad waa xadiis imaam muslim uu wariyay imaam an-nawawina uu ku sharxay kitaabkiisa sharaxa imaam muslim عائشة رضي الله عنها أي ورثي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وحان هميي لقد هممت وحان هميي إن حاران كديجو غيلة علماء وحيري هذان وهو يدا مركي أمشو أو أيضا يعني الناس نوجينيسا حاس أذا جاد وتجو قلماضو يعني إن لو قلماضو حاس عيال نوجينيسا أما علماء كانوا waxay leeyihiin ma waxa weeye hooyo uur leh inay wax nuujiso labada waxa weeye waxa loo naxayaa marna cunuga la nuujinayo oo naaskii baa ka go'aya markaas waxa dhacaysa inuu cunugii tabar darri ku dhacdo oo caafimaadkiisa uu yaraado uusan noqonin awood loo xoog leh oo dadka maaragtay nolosha la tacaali kara ama cunuga uurka ku jira in noloshiisa iyo korniinkiisa ay wax iska dhimaan nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu wuxuu yiri waxaan hamiyay inaan joojiyo ninku xaaskiisa inuu u galmoodo ayadoo wax nuujinaysa wuxuu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka baqayaa ama uu ilaalinaya dadka muslimiinta ah caafimaadkooda inay noqdaan dad ma aragtay weak oo daciif oo tabar yar buu diidanaa markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fa nadartu ila ar-rum wa faris waxaan fiiriyay yiri ummadaha kale oo nolol adduunka Roomaanka iyo dadka loo yaqaan furs mise waa dad xoog leh oo waaweyn xaasaskoodana waa u galmoodaan ayagoo marka wax nuujinaya marka qiiladii wax ay ka tartamale yani ciyaal waxay dhaleen waaweyn oo caafimaad leh oo xoogan bay dhaleen marka qofkii rabow aday ku taala in xaaskaaga caloosha ciyaalka isku babanayso
cunug baa dhashay cunug kala dhashay sanad ama sanadii bar isku wax dhiba male arintaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sameeyay ijtihaad markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ijtihaadayana wuxuu fiiriyay umadaha kale iyo tajaarubtooda isay u nool yihiin imaam an-nawawi oo sharxaya wuxuu hadal ku soo gabagabeeyay wa fiihi waxa ku jira xadiidkaas inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u banaana inuu ijtihaadi jiray arimaha masaalixda adduunka sidaasina culimada usuuliyiinta u badan yihiin xadiidka labaad waa xadiidka imaam maalik uu soo saaray kitaabkiisa muwatta ahmed bin hanbal uu wariyay riwaayada aisha riwaayadii abi sa'id al-khudri saddex tusaale ku jira xadiidkaas waana xadiis muhiim ah mar waqtiyada kamid ah magaalada madiina waxa ka dhacay abaaro baadihi ku hareereysnaa dad badan oo deganaaba ka soo guuray wax isku yimaadeen magaalada madiino ila magaalo ahayd marka waxa dhacay abaaro iyo dhaqaale xumo iyo waxa dhacday iyo majaaco nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu wuxuu amray dadkii saxaabada ahaa oo reer madiina ahaa hadii ciidul udhiya ay dadka wax gowracdaan in saddexda maalmood hore ay hilibka cunaan wixii u soo hara oo awal ay keedsan jireen ilaa markay hilibka u soo hara way keedsadaan ilaa sanadka dambe laga gaarayo dadku keed buu u ahaan jiray wuxuu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam amray oo waajib ka dhigay qof walba markuu hilibka qasho saddex maalmood kadib inuu sadaqaysto uu kala siiyo dadka masaakiinta ah arinka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sameeyay problem waxa dhacay ama majaaca dhacday ama baahi baa dhacday abaara dhacday si marka mujtamaca dadna aysan u dhargin oo hilba u cunin dadna aysan u baabi'in nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hilibka iyo waa in la wada qaybiyaa amar buu ka dhigay sanad kadib markii dadkii roobab la helay oo abaartii laga baxay oo dadkii nimcoobeen oo barwaaqoobeen bay nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimaadeen yaa rasuulallah xoolaha markaan qalanno intii aan cunno aan isticmaalno ma ahan iyo wixii aan sada wixii noo soo har waa keedsan jirnay adigana waxaana amartay inaan waxba la keedsanin see sameynaa markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaan idinka reebay inaad keedsataan hilibka oo maaragtay udxiyada ah laakiin wixii hadda ka dambeeya cuna waxa rabtaan sadaqaysta inta idin soo hartana keedsada wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri waxaan idin diiday inaa wax ku cabtaan koobabka lagu yaqaano in khamrada lagu cabo ama khamrada lagu cabi jiray waxba ha ku cabina laakiin wixii hadda ka dambeeya koobka rabtaan wax ku caba laakiin ha cabina wixii muskir ahoo maankiina doorinaya xadiiska runtii waa xadiis cajiib ah saddex tusaale buu nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo qaatay waana saddex namuudaji ah saddexdoodana waxaad dareemaysaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u sameeyay maadaama uu ahaa madaxweyne dadka muslimiintana madaxweyne uu ahaa asaga nabiga sallallahu alayhi wasallam ay dushiisa saaran tahay dadkii mujtamaca ahaa baahidooda quudkooda waxay cuni lahaayeen inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka shaqeeyo aqeedadooda inuu ilaaliyo inuu masaalixdooda ilaaliyo inuu dhaqankooda ilaaliyo in mujtamaca takaafulkiisa isku dheelitirnaantiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaaliyo qodobka koowaad marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sameeyay dadku waxay ay keedsan jireen oo xalaal ah buu yiri ma keedsan kartaan taa marka waxa waa ijtihaad nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ijtihaaday waana xukun siyaasi ah waa meeshii ibn al-qayyim uu dhihi jiray as-siyaasa al-juz'iyya markuu ka sheekeenay kitaabkiisii at-turuq al-hukmiyya nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri ha keedsanina markii baahidii laga baxana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa keedsan kartaan culimada marka waxay leeyihiin sida imaam maalik oo kaleeto arinkaas waa xukun masaalixda aadanaha lagu ilaalinayo mar walba baahi timaado mar walba abaara timaado imaamka ama madaxweynaha ama dawladda islaamka waxa loo baneeyay in la timaado xal ee abaarahaas iyo baahidaas uga hortagto waxa kamid ah sida Umar bin Khattab uu sameeyay sanadkii loo bixiyay caamur ramaad ama baahidii weyneed caamur ramaad wuxuu mamnuuc ka dhigay in dadka qaybtooda ay cunaan hilbaha in la cuno waxyaalaha subaga iyo saliidda leh si mujtamaca ay u sinaadaan qaybta labaad waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qabuuraha soo ziyaarinina qabuuraha in la soo siyaarto waa cibro iyo tadkiro iyo waana ku jirta wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u diiday maadaama ay ahaayeen mujtamac mar dhow soo islaamay wathaniye ka soo guuray qabuuraha iyo maarata caabudi jiray si looga leexiyo looga fogeysiiyo aqeedadana qalbigooda ay ugu xasisho ugu dagto nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka fogeeyay meelaha ay ku jirto maaragtay shirkiyaadka ama soo xasuusin karta wixii hore uu sameyn jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ka fogaada markii saxaabadii ay weynaadeen muddo ay noolaadeen oo aqeedadii ay laqeen oo cabeen qalbigooda ay ku xasishay oo aan waxba looga baqaynin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fazuuruha soo ziyaarta laakiin hadallo fuxshiya ha ku hadlina waa siyaasa juz'iyya ama waxa loo yaqaan siyaasa tadriijiyya marba heerka ay mujtamaca joogan in xukunka uu la socdo waxa la mid ah sida khamrada oo kale hal mar xaraam lagama dhigin waxa la yiri marka hore idikoo tukanaya khamrada ha cabina laakiin meelaha kale ku cabba markii la qabsadeen oo jirkooda ka soo yaraaday ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu si tartiib looga gooyay qabuuraha iyo ziyaaradooda si tartiib looga gooyay
markuu qalbigooda la qabsaday nabiga sallallahu alayhi wasallam uu baneeyay waxa la mid ah arrimaha khamrada nabiga sallallahu alayhi wasallam mujtamac waxa loo soo diray khamrada ka shaqeysta oo ka ganacsada oo cabo oo aad u isticmaala markuu xaaraan ka dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka fogeeyay mujtamaciisa wax walba oo xasuusin kara ama tusi kara walidaalka wuxuu xaaraam ka dhigay in xataa wax lagu cabo koobabka khamrada lagu cabi jiro asalka u ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxba ku cabina markay mujtamaci koreen oo weynaadeen oo wacyigoodii waasic noqdo oo ilaaween oo iimaankoodii raasikh noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa rabtaan wax ku caba laakiin wala tashrabu muskiran xadiiskaasna waxaan ka qaadanaynaa siyaasaadka bulshooyinka lagu dhaqo iyo ahkaamta sida tadriijiga loogu sameeyo hadba mujtamaca maslaxadooda wax ku jira in shariicada islaamka ay ku dhaqdo xadiis marka asagan runtii muhiim ah oo aad u weyn waxaan ku soo gabagabaynaynaa tusaale xadiiska asagana saxiixa ah waa daalatul ibil nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay geela markuu dhumo oo la waayo maxaan ka sameynaa ma qabanaa oo ma baafinaa oo ma niraana wartigan yaa iskale wargeelan yaa iskale ilaa laga helo qofkii iska lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxaa idinka galo aad u qabsanaysaan geela macaha maa'uha wa macaha siqaa'uha geela biyihiisu wata dhirtaasu cab cunaya wuu nool yahay wuu isbadbaadin karaa xayawaan looga baqaayo in maaragtay la dilo ma ahan wuu isbadbaadin karaa ma qaban kartaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam mana baafin kartaan ariga la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ariga qabta hadaa aragtaan oo baafiya oo meelaha dadka isku yimaadaan waxa tiraahdaa war arigaas uu ka dhumay xilligii waxa tagtaa Uthman ibn Affan amaanadii baa yaraatay mujtamacii waxa ku batay tuugnimadii in wax la kala xadaa ku badatay wuxuu yiri qofkii arka geel oo baadi ah ama dhumay ha soo qabto ha baafiyo siyaasadda way isbedeshay لأن صحابته waxay ogaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam sababta ama cilada uu yiri geelayaan la soo qaban yaan la baafinin amaana markaa jirtay hadda laakiin amaanadii baa yaraatay Uthman ibn Affan markuu yiri hal la baafiyo xilligii Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu khilaafada uu hayay madaxweynaha uu ahaa lamid amaanadii way sii yaraatay wuxuu yiri ma anfici karto wuxuu sameeyay beero waaweyn kaymo waaweyn buu sameeyay halkaas waxa la iskugu keenaa wax walba oo xoolo ah oo dhuma halkaas aan laga baafin jiray siyaasad marka waxa way tadriijiyan arrimaha marka noocaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay jiray arrimaha dunyawiga ah waa arrimo masaalixda mujtamaca muslimiinta iyo ummadda muslimiinta ku jirta arrimaha marka masaa'isha in loo kala qeybiyo diini iyo dunyawi culimadii hore uga soo hadleen waxa ka hadlay imaam al-Mawardi kitabkiisii adab ad-din wa ad-dunya waxa aad u sharxay imaam al-Qadi Iyad rahimahullah kitab dhan buu ka qoray ash-shifa fi ta'rif al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam wa kitab muhiima waxa aad u sii faahfaahiyay al-imaam al-Qarafi rahimahullah kitab uu ka qoray la yiraahdo kitab al-ihkam كتاب آد مهم واويه قفكي وبعد كتابك الشفاء كتابك الإحكام رابط كودا أما لينك جلجه اللي كرو وحندين صور لجنا إن شاء الله تعالى صفحة هوست هذا هل كاسا كوبي سنكرتا وأنا لقى آخر سنكرا لما كتاب رنتي مهمة نوح وتفطرين علماء النوع عاسة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ديسة والدنيوي يوحي ديني النبي صلى الله عليه وسلم وحي أسمي مدحوين أهان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وسمي قضاء محكمة أهان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وسمي فتوى أهان وحي النبي صلى الله عليه وسلم وسمي تبليغ أهان أنا بقى سمر كلا أوقاده وحبضا بمجتمعنا كبدل إسان وحكم ده أن أرماه النبي صلى الله عليه وسلم وسمي جري مصالح ده صلحي أكلا كم ده النبي صلى الله عليه وسلم هيشيس وقلي جري وحو هيشيس اللي قلي جري مجتمعات ككلاته سيدي قبيل كغطفان مركي رير مكة قبائش عربتها يسكوي مادين صحابة دي المدينة دقنيت وحلو يقانا غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم مركز سوء وغير علايس كرير مدينة وحو هيشيس لقالي قبيل كلو يقانا غطفان وقبيل أدوينها وحو كله هيشيي إن بيرها مدينة كصباحة تمرت هذا برسنتج وكسي سنتكي وفائدة رير غطفان si uu uga baxan heshiiska reer Quraysh saxaabadeena ay u helaan nasniin badan u helaan nabi sallallahu alayhi wasallam markuu heshiiska la soo galay wuxuu u yimid as-Sa'dan Sa'd ibn Ubad iyo Sa'd ibn Mu'ad arinta ka warrama markaas waxay yiraahdeen ya rasuulallah ma wahyiba ma tala ana wadiinaysidba ma baqdin anaga aan baqaysidba wuxuu yiri maya waa tala idinka idin wadiinaya baqdin idinka idin baqaayo reer Madiina saan isku kiintagin markaas waxay yiraahdeen waxba nabigu hanoo baqin nimankaana heshiis la gali meeno waxa noo dhaxay anaga ayagaba waa seefta wixii aan kala helnaan leena nabiga sallallahu alayhi wasallam heshiiskii uu soo galay bay ka soo horjeesteen nabiga sallallahu alayhi wasallam ra'yigoodii buu ku raacay saxaabada marka maxay ku ogaan jireen arinkan inuu waxyi yahay inuu arin diini ay tahay ama tala tahay koo waxa lagu ogaan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam tala gelin jiray saxaabadiisa wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam tala geliyay dagaalkii Badar waatii marka saxaabiga uu ku yiri meel biyo la nagay ceelka gadaashiisa aan dagno wuxuu tala geliyay dagaalkii Uhud nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tashanayay in magaalada Madiina dhexdeeda uu ka dhaco dagaalka saxaabadu waxay ku yiraahdeen ma naga saaro banaanka Madiina aan aadno
nabiga sal lla slam wuxuu la tashaday arrintii axzaab wuxuu la tashaday sulxu lxudaybiya intodaasba waxay ku tusaysaa markuu nabiga sal lla slam la tashanayo saxaabadiisa inay arrinkan ay tahay arrin ijtihaadi ah arrin dunyawi ah arrin masaalixda mujtamaca u khuduucaysa inay tahay walidaalika nabiga sal lla slam maslaxadda raajixa ah sida imaam alqaraafi uu yidhi buu nabiga sal lla slam ku la tacaamuli jiray waxaa lagu ogaan jiray in nabiga sal lla slam asagaaba dadka u sheegi jiray saxaabadana way weydiin jireen walidaalika saxaabada waxay ahaayeen dad aad iyo aad nabiga sal lla slam dhaqankiisa u yaqaanay sunnadiisa u yaqaanay wixii nabiga sal lla slam waxyaana way ka qaadan jireen wixii talaana nabiga sal lla slam way ku biirin jireen annaga haddaanna mujtamac soomaaliyeed arrinka noocaas inaan aad u baranno waa u baahannahay waxaan ku talinayaa هل أخري كتابك الإحكام هل أخري كتابك الشفاء هل أخري كتابك أدب الدين والدنيا أن كلا أوغانو مصالح النبي صلى الله عليه وسلم وفيرين جري والنبي صلى الله عليه وسلم وقيمين جري النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات كيسة صحابة دي سي وقبرتين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته